tirada dadka laga helay cudurka coronavirus ee dalka Talyaaniga ayaa kordhay waxaana mas'uuliyiinta caafimaadka ay haatan sheegeen in ay 2 qof ay dhinteen. Mas'uuliyiintu waxay xadideen dhaqdhaqaaqa dadka meelaha uu saameeyay xanuunkani. Caashe Ibraahim Aadan Caashuud ayaa wararkan ka wareysatay Shukri Saciid oo la shaqeysa wargeyska La Repubblica ee ka soo baxa dalka Talyaaniga. qaabka uu ku soo galay waxa weeyaan horta 2 wiik 3 wiik ka hor markii dhibaatadan ay ka dhacday Kiinaha yaa dad Talyaani oo Kiinaha joogay oo ka shaqeynayay yaa halkan la keenay waxa karantiin meelaha la geliyay dadkaas waxa ka soo baxay 2 qof oo maxaayeen dalxiis u yimid oo Talyaani oo Chinese ah la waa la seexiyo isbitaal weyn oo Roma ku yaal baa la seexiyay iyo 2 kale oo Talyaani oo ayagana wiil uu si toos ah ugu soo baxay naag kalena adoo xoogaa xanuun oo la seexiyay sidaas oo xaaladdu ahayd oo dad oo China ka wada yimid oo laga keenay ay ahaayeen kowdii markii ugu horeysay hadda sida ay idaacadaha iyo joornaaladu sheegayaan 19 February yaa nin Talyaani oo Northkan meeshan gobolkan Milano ka tirsan oo Lombardia la yiraahdo iyo baa waxa nin 38 jir ah dhalinyaro oo isboorti oo xaas laho xaaskiisu uur ay leedahay ninkaas baa xanuunsaday isbitaal buu tagay waa la check baa lagu sameeyay ninkii waxa la ogaaday marka inuu coronavirus qabo gurigiisii baa la yimid xaaskii oo uur la baaray xaaskii oo uur lana iyadana coronavirus bay qabtaa waxa marka daraasad lagu sameeyay sababta ninkan uu meesha u xanuunsaday ninka waxa la yiri wuxuu la kulmay oo dhowr jeer 3 jeer la casheeyay oo la kulmay nin saaxiibkiis ah oo Talyaani oo China ka yimid dhawaan oo China ka shaqeeyo sanadkii adigu 6 biloodna China jooga halkaan la yimaado ninkaas uu dhowr jeer la kulmay ninkii laftirkiisii waa guriga loogu tagay waa loo yeeray ninkii waxa la yiri waan xanuunsaday yiri xoogaa qandhaha maalmo ay qabtay laakiin asagii coronavirus waa laga waayay laakiin familigiisii waa ninkaas laga helay oo nin dumaashigiisa iyo nin kale oo baa laga helay marka dhibaatada ugu weyn waxa la yiraahdo waxay ka soo baxday ninkan 38 jirka isbitaalkii lagu baaray oo shaybaarka lagu sameeyay yaa dadka hadda qaba cudurkaas oo gedigooda say u badan yihiin ka soo jeeda isla gobolkaas Lombardia markii hadda inta laga helay Talyaaniga cudurkaas waa 132 qof 89 kamida gobolkaas ay ka soo jeeda waxayna xiriir la yeelatay isbitaalkaas ninkaas la seexiyay qaar waa dhaqaatiir qaar waa howlwadeeno qaar waa dad booqasho u tagay oo iska soo daaweeyay isbitaalkaas yar oo magaalo yar oo loodi la yiraahdo loodi jaan la yiraahdo dadkaas bay ku soo aruureen marka waa halkii qof 38 jirka ahaa isbitaalkii uu tagay bay ka soo bilaabatay iyo dadkii joogay halkaas ay xaaladdu ka soo bilaabatay say u badan tahay hadda arrintan gobolkan oo gobolka ugu daran oo Lombardia gobolka ugu dhaqaalaha badan oo Milano magaalada ay madaxda ka tahay oo dhaqaalaha wadanka ugu xoog badan meeshaas weeyo warshaduhu ku yaalaan warshadahaasna warshado badan oo China ku leh branchiya ku yaala waxa kale oo jirta gobol kale oo ku dhagan oo Venice oo Venezia la yiraahdo ayagana Northka 2 qof baa laga helay 2 qof oo laga helay 2 nin oo waayeelay ahaayeen mid oo dhintay hadda 2 qof baa u dhimatay mid kale oo dumaruhuna waxay ku dhimatay magaalada laftirkeeda ninkan 30 iyo 8 jirka ah sababtoo ah waxa la yiri waxay iska soo daaweysay isbitaalka ninkan 38 la seexiyay iyaduna iska soo daaweysay labadaas qof baa ilaa hadda geeriyooday waa Talyaaniga coronavirus marka ninkii 38 jirka ahaa ee hadda loo malaynayo in asaga ka soo asaasantay inta badan dadka hadda uu ku dhacay isaga ma nool yahay mise uu dhintay maya isaga wali waa nool yahay laakiin asaga meeshuu ka keenay ilaa hadda la raadinaya waxa la leeyahay persona 0 personkii waa wali la leeyahay marka asaga waa 1 personkii laakiin 0 personkii ninkii managerka ahaana wali waxa la yiri anticorpus oo muuna samaynin oo haduu qofku xanuunka ku dhaco xataa ka biskoodo in laga helay ahayd difaaci uu jirkiisa sameeyay oo xanuunka inuu iska difaacay wali difaaciisi waa la leeyahay laakiin ninkaas managerka familigiisi qaar baa jiran oo coronavirus qaba hadda 2 qof oo kalena gobol kale oo Piemonte la yiraahdo Faransiiska iyo Lombardia xuduud la leh waa laga helay gobolka Lazio la yiraahdo Romana 2 qof baa laga helay oo
qaar laga keenay China mid uu ka yimid marka wax toos hadda magaalo madaxda uga dhashay ma jiraan 132 qof baan hadda maraynaa. dawladdu markaa tallaabooyinka ay qaaday ay ku xakameynayso arrintan maxay yihiin? tallaabooyinka hadda la qaaday waxa weeye gobolkan Lombardia horta maayarkiisa oo Sindaco Sala la yiraahdo yaa wuxuu ku dhawaaqay inuu horta iskoolka hal week xiran yahay. gobolkaas waxaa kale oo maxaydeen la xanibay oo xanibaad lagu soo rogay wax kasta oo social interaction ama ha ahaato kubadii la ciyaarayay oo Serie A-ga ahaayo kuwii ugu sareeyay oo la ciyaarayay waa la joojiyay. maxaydeen munaasabadihii public ahaayo la isugu tagayay waa la joojiyay. tiyaatarradii iyo cinemadii iyo meelihii in la aado waa la joojiyay. waxaa kaloo la joojiyay kaniisadii dadku isugu imaan jiray meelihii wax kasta oo public ah oo la isugu yimaado waa la joojiyay. mideeda kale waxaa la joojiyay iskuulkii dadkii iskuulaadka waxbarashada ilmaha la qaadi jiray oo goboladan reer Yurub iyo maxaydeen ilmayaasha safar la gelinayo. anigaas kula hadlaya xalayto wiil anigu aan dhalo labadayda wiil mid kamid yaa program wuxuu ku jiray oo Spain inay hal week oo ay school iyo vacation u aadaan. xalayto saqdaxana la soo wacay diyaaradda Alitalia ahayd inay raacaan waa la kansalay. marka waxaa la kansalay wixii diyaaradaha wixii safaraha oo horta waxbarasho iyo waxaas ah oo dibadda reer Yurubka waa la xiray iyo gudahana hadda waxay leedahay wasaaradda waxbarashadu oo ay ka fakaraysaa inay iskuulaadka dhan hadii la wada xiri lahaa oo hadii hadda gobolkaas Lombardia Milano iskoolkeedii baa hal asbuuc la xiray no. taasina waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafi ka tirsan wargeyska La Repubblica ee ka soo baxay dalka Talyaaniga. khadka telefoonka ayayna ugu warantay Caashe Ibrahim Aadan Caashe.